waxaana wanaagsan idlaantii madaawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xiligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Puntland oo awood ka yaabisay dawladda federaalka maanta soo bandhigtay kuna dhawaaqday wajiga labaad ee howlgalka lagu soo afjarayo kooxda Daesh madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo ku maadeystay dawladda federaalka si weyn ugu faanay ciidankiisa haddaba muxuu halkaasi ka sheegay warbixin ayaanu idinkaga haynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo go'aan kama dambaysa ka gaaraya dawladda Kenya haddaba maxaa ka jira in xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu mar kale go'ayo maxayse Kenya ku diidan tahay in ay ka baxdo garabka Axmed Madoobe oo ay sheegtay in ay si cad u taageersan tahay iyo xiisad xooggan oo ka taagan gobolka Gado xilli ciidanka Itoobiya ay diideen in ay u hoggaansamaan awaamirta maamulka Gado ee dawladda federaalka iyo Itoobiya oo bahdishay mar kale askar ciidanka xoogga Soomaaliyeed ka tirsan qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawade muuqaalka like saar sidoo kale sii share garay oo la sii wadaag saaxiibada kale ee kuugu jira baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno maamulka Puntland ayaa waxa maanta uu soo bandhigay awood si weyn uga yaabisay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii ay soo bandhigtay cudud xoog leh oo ay ku doonayso in ay ku soo afjarto dagaalka adag ee ay kula jirto kooxda Daesh Puntland ayaa waxay maanta soo bandhigtay hub culus oo noocyo kala duwan leh iyo sidoo kale ciidamadii ugu badnaa isla markaana ah ciidamo tababar wanaagsan haysta kuwaas oo iyagu la doonayo in lagu soo afjaro isla markaana lagu soo gabagabeeyo howlgalka lagu ciribtirayo kooxda argagixisada ah ee Daesh madaxweyne Dani ayaa bandhigan ka hadlay isla markaana khudbad dhowr iyo 20 daqiiqo soconaysay halkaasi ka jeediyay waxa uu marka hore aad ugu faanay ciidankiisa difaaca Puntland oo uu sheegay inay yihiin ciidamo geesiyaal ah oo aanan horey loogu arkin Soomaaliya waxaana uu sheegay in ciidamadu ay qoryaha culculus ee dhashiikaha iyo kuwa kale ee ka culus ay garbaha ku qaadanayaan maadaama dhulkaasi uu yahay dhul buuraley ah isla markaana kaymo ah oo gaadiidka uusan ku socon karin taas oo uu sheegay in ay muujinayso difaaca kartida iyo awoodda ciidanka Puntland ay u leeyihiin in ay soo afjaraan kooxdaasi Saciid Dani ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha kale ee xubnaha ka federaalka in ay ku daysadaan maamulka Puntland oo tusaale u ah maadaama uu sheegay in dhinacyada kale ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay aad uga baqanayaan kooxaha argagixisada ah isla markaana markasta ay u qayladaan dirsanayaan caalamka waxa uu sheegay in kooxahan ay yihiin kuwa tabartoodu ay yar tahay isla markaana loo baahan yahay in kaliya lagu dhiirado si loo soo afjaro Saciid Dani ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday guulaha laga gaaray wajiga koobaad ee dagaalka ay kula jiraan kooxda Daesh waxa uu sheegay in ilaa iyo 100 diyaaradood oo nooca drone-ta ah oo qaraxyo ay ku xiran yihiin in ay ku guuleystaan ciidamada Puntland in ay soo ridaan iyadoo aan waxyeello gaarsiin amaba waxyeello aysan u geysan ciidamada Saciid Dani ayaa ku nuuxnuuxsaday in ciidamada dhaawacmay xitaa ay yihiin kuwa geesiyaal ah oo markii la sii qaadayay xitaa oranayay erayo ay ka mid ahaayeen in ay diyaar u yihiin in haddii ay soo caafimaadaan ay mar kale ku laabanayaan furimaha dagaalka Saciid Dani waxa uu nabad ugu baaqay Somaliland waxa uu sheegay in isbedel uu ka dhacay Somaliland isla markaana uu ugu baaqayo in nabadda ay qaataan reer Somaliland isla markaana iyaguna door fiican arrintaasi ay ka qaadan doonaan khudbadiisa waxa uu sidoo kale kaga hadlay raafka lagu sameynayo dadka ajnabiga ah ee aanan u dhalan ee deegaanada Puntland waxaana uu ugu baaqay in markaasi aad loo ixtiraamo dadka ajnabiga ah ee duruufaha adag markaasi ku soo galay maamulkaas isla markaana doonaya in si nabad ay halkaasi uga shaqeystaan isagoo oo ugu baaqay dhalinyarada reer Puntland in xamaasadda aysan qaadin oo ay ka digtoonaadaan arrimahaasi haddaba khudbadda Saciid Dani oo ahayd mid aad u dheer ayaa waxa ay ahayd mid markaasi isugu jirtay fan dhoolatus iyo waliba sidoo kale in Puntland ay diyaar u tahay inay iska xoreydo kooxda Daesh waa hagaag geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu soo waramayaa in go'aan kama dambaysa uu ka gaarayo dawladda Kenya ayaa waxa ay diidan tahay in ay si buuxda uga baxdo garabka Axmed Madoobe iyada oo cadeysay in ay taageersan tahay Madoobaha Jubbaland dawladda Soomaaliya ayaa wada la tashiyadii ugu dambeeyay ay ku doonayso in go'aan kama dambaysa ay kaga gaarto dhigeeda Kenya
warar soo baxay ayaa sheegaya suurtagalnimada in xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu mar kale noqdo mid go'a isla markaana sabab la xiriirta Axmed Madoobe darteed uu go'o. Kenya waa ay diidan tahay in ay ka baxdo garabka Axmed Madoobe maadaama Axmed Madoobe ay howlo badan kala dhaxeeyaan sida inay xuduud wadaagaan, in uu u hoggaansan yahay Kenya iyo in Kenya laftirkeeda ay dalkeeda halkaasi ka difaacato isla markaana ay mar waliba isku daydo in Jubbaland dhexdeeda ay kooxaha argixisada ah isaga difaacdo ama markaasi ay kula dagaalanto. laakiin warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay u dulqaadan laadahay tallaabooyinka ay qaadayso Kenya isla markaana suurtagal ay tahay in ay bedesho go'aankeeda ku saabsan xiriirka labada dawladood. dawladdii hore ee Farmaajo ayaa xiriirka u jartay Kenya markii arrimo Axmed Madoobe la xiriira la isku qabsaday labadii sano ee u dambeysay ee madaxweyne Farmaajo uu joogayna. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya waxa uu ahaa mid go'an oo waxa la joojiyay qaadkii halkaasi laga keeni jiray. laakiin hadda siyaasiyiin badan oo saaxiib la madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo laftarkiisa ayaa faa'iido badan ku qaba qaadka ka yimaada dalkaasi Kenya. ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in xiisad xooggan ay ka taagan tahay gobolka Gedo iyada oo ciidamada Itoobiya ay diidan yihiin inay u hoggaansamaan awaamirta maamulka Gedo ee dawladda federaalka. gudoomiyaha gobolka Gedo ee dhinaca dawladda federaalka ayaa waxaa la sheegay inay isqabteen ciidamada Itoobiyaanka ee jooga magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo. waxa uu sheegay in awaamirta uu soo saaro haddii ay u hoggaansami waayaan ciidamada Itoobiyaanka in uu u diidi doono biyaha iyo sidoo kale waxa kale ee nolol maalmeedka ah ee Itoobiyaanka halkaasi ka isticmaalaan. gudoomiyahan ayaa waxa uu dhawaan soo magacaabay maareeyo cusub oo uu yeelanayo amaba ay yeelanayso magaalada Baardheere ee gobolkaasi Gedo. laakiin ciidamada Itoobiyaanka ayaa la sheegay in arrintaasi ay diidan yihiin iyada oo maareeyihii hore ay Itoobiya weli la haysato. gudoomiyaha gobolka Gedo ee dawladda federaalka ayaa Garbaharre kula kulmay saraakiisha ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugan, waxaana uu u sheegay in haddii ay isku dayaan inay diidaan amarkiisa in biyaha uu ka jaran doono. arrintan ayaa waxay tahay mid xiisad hor leh ka sii abuuraysa gobolkaasi Gedo. sidoo kale askar halkaasi ku sugneed ayay Itoobiya u diiday in ay howlahooda caadiga ah qabsadaan. qaarkoodna waxaa lagu soo warramayaa in jirdil loo geystay. guud ahaan wararkeena intaas ay ku dheeyihiin intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.